munaasabad lagu xusayay 61 guuradii ka soo wareegtay 26 Juun oo ahayd markii Soomaaliland xorriyadeeda kala soo laabatay mustacmaradii Ingiriiska iyo sidoo kale markii geyiga Soomaaliland laga taagay calanka ayaa lagu qabtay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascanood waxaana ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sool maamulka cusub iyo kii hore ee degmada Laascanood cuqaal waxgarad dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxgaradka cuqaasha iyo dhalinyarada madashaasi ka soo qayb galay ayaa ka hadlay kuna dheeraaday taariikhda 26 Juun oo ah 61 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland xorriyadeeda kala soo laabatay gumaystihii Ingiriiska joognaa xafladii 26 Juun waa maalintii aynu reeryada gumaysiga ka xorownay oo aynu ka qaadanay xorriyadii rasmiga ahayd maalintaas la yiri bal hal xasuusnaado oo hal xuso waa ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Musabbixi Cabdi inuu kaga dawan yahay madaxdii hore in la xuso 26 Juun waa ugu mahadinaynaa xafladan qiimaha leh ee xorriyadii aynu ka xorownay dawladii Ingiriiska ee gobolada waqooyi gumaysan jirtay 26 Juun 1960 oo aynu saaka u dabaaldegayno 60 guuradii 61aad waxa weeye waa maalin aad iyo aad ugu weyn waxaynu ku xusaynaa halgamayaashii ama mujaahidiintii oo dhabtoo lagu tilmaami karo taariikhdii ay nooga tageen ee gumaysiga gaalka ay naga xoreeyeenna aynu ilowna maaha waa inaynu ubadkeenna aynu ku barbaarinaa haddii aan la og yahay dhammaan waxaan u hambalyeynanaa dadweynaha Soomaaliland meel kasta oo looga dabaaldegay xafladda 26 Juun waxaan rajaynayaa tanta ku xigtay sida ay si ka ballaaran loo weynayo. Assalaamu calaykum. maayarkii hore ee degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Tarwale maayarka cusub Cabdiraxiin Cali Ismaaciil taliyaha qaybta booliska gaashaanle sare Axmed Cabdilaahi Cabdi ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay maanta waa maalin weyn waxaanu halkan xafladan isugu nimi sanad guuradii 61aad ee 26 Juun oo maanta ay ka soo wareegtay 61 sanadood waa markii koowaad calan laga taago ama gumaysiga aan isku kicino kullay waa maalin farxad leh waa maalin muxuu ahaa waa tii timacdeeri ka nasiib ka nasaar hambalyo u diraya dhammaan shacbiga Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha dawladda shacbiga Laascanood shacbiga gobolka Sool maanta qiimo weyn bay inoo leedahay inaynu xusno 61 guuradii ka soo wareegtay maalintii aynu ka qaadanay xorriyadda gumaystihii Ingiriiska waxaynu xorownay dhaqan waxaynu xorownay diin waxaynu xorownay dadnimo waxa la naga rabaa inaynu maalinta weynayno laamiga ku dabaaldegno shaariciyada marno xaflad aad iyo aad u qiimo badan aynu dhignaa la naga rabaa maanta wixii ka dambeeya insha Allah ta'ala waxaan ballan qaadayaa haddii waqtigu igu simo xilkuna igu simo maalinta xigta in xaflad weyn oo fardaheedii wadata oo seefaheedii wadata oo duubcadeedii wadata inaan ku soo bandhigo halkan kulli maanta waa maalin weyn oo inagu weyn oo dalkeena ku weyn waa maalintii ugu horeysay ee Soomaaliland ay calan ay qaadato ugu horeysay weeye waa maalin taariikhiya weynaynteeda leh inta marka laga yimaado kulli anagu deebileys baan noo siyaasadda shaqo kuma lihin waxay waa nabadgelyo waxaan ka codsanaynaa intiina meesha isugu timid in nabadgelyada nagala shaqeeyo gobolkuna aad buu wanaagsan yahay gobol ahaan xagga nabadgelyo aad baynu wanaagsannahay ilaahay waxaanu ka baryaa inuu noo sii adkeeyo barasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliland madaxda qaranka iyo bulshada gobolka Sool munaasabada 26 Juun awgeeda 26 Juun 61 sano ayaa laga joogaa markii aynu sanadaalihii Ingiriiska aynu xorriyadina ka qaadanay taariikhdeeda iyo waxay tahay in badan baa laga hadlay waayeelkii halka ka hadlay baana xusay runtii inaynu ugu mudanahayna waa la sheegay inaga muuqato sida la sheegayo haynaga muuqataan leenahay insha Allah wuxuu dadka kale oday abaanka gabi dadka kale daraatiyo shalay dhaga xatuureen aniga si calankan toolmoon waa taarahaygi
nin deegaan ka soo jeedo ahaa innaga ku nufuynay runtii diinta islaamka aynu u dagaalamanay xorriyad baynu raadinaynay sayidka aynu ugu hogaaminayay waa wax cad oo runtii taariikhda Somaliland bal dahaba ka gashay waana taariikhda maanta ugu weyn taariikhda Somaliland lagu faano waxa ku xigay iyaduna 1991kii shirka aynu burco ku galnay ee isagana aynu xorriyadeena Soomaaliya kaga soo noqonay oo isagana ay jabhadii SNM ay hogaaminaysay oo isaguna runtii xorriyad muhiim ah oo tan maanta ku furnay nabadgelyada aynu isugu nimid ay tahay oo runtii aynu calanka tawxiid kale ku samaysanay maanta waxaan leenahay waa ka tawxiid kale isagana u baahnay rag iskaga celino isagana u baahnay inaan ku dagaalano isagana u baahnay inaan xuquuqdeena iyo waxaan leenahay kala soo baxno runtii in badan baynu deegaankeena wada ogtiino deegeed Sarakuwaab iyo meelo kale xuquuqdeena ku luntay maanta wada ogtiin doorashada dhacday si waafiyay deegaanadan uga dhacday taleexba ugu fog baan u maleynayaa dhulka aynu gobolka Sool degmooyinkiisa maanta council bay leedahay saad ogtiin ba wadankan hadeer Somaliland maanta waxa kaliya uu soo waa اعترافkaas dhawaan baa la اعترافي doona insha Allah wayna caddahay in la اعترافayo ifafaalaha muuqda marka inaga waxa la rabaa kama dibitay karne inaan ka hormarno اعترافka liibaan qaran warbaahinta qaranka Somaliland Laascanood